xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay doorashadii ka qabsoontay deegaanada Somaliland ee isku sadkaneed ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu amaanay hanaanka wanaagsan ee loo qabtay doorashadaasi, waxaana uu sheegay in doorashadaas ay ahayd mid ku dayasho mudan. taas waxa taas uga baxay dadka Soomaaliyeed marka dabiiciyan inay dimuqraadi u yihiin daliil waxa uu ah waxa hadda gobolada waqooyi ka dhacay Somaliland. dimuqraadiyadu in ay suurtagal naga tahay waxa Somaliland ka dhacay dalal badan oo dimuqraadiyan ay dhahayo ee Afrika ku yaala ayaanay suurtagal ka ahayn. Afrika waa aragteen waayahan dhan 2020 inta badan doorashooyinka ka socdo doorasho kasta qayla ka yeerisi inta badan doorashooyinka Afrika ka dhaco dhan qayla ka yeerisi waqooyiga Soomaaliya gobolada ku yaala dadka Soomaaliyeed sharafta badan ee degan doorasho u dhaqaaqay maamulkii sameeyayna waa mahadsan yihiin waa habeeyeen doorashadii way soo gaarsiiyeen way keeneen hal is doortay dadkii u soo celiyeen dadkii idin matalayo raalli ka tiin idin kula imaada waa la yimaadeen waa soo doorteen xisbigii dalka xukuumaya ee madaxweynuhu uu lahay waa laga cod badiyay ma diidin ma dagaalamin waxaan qalad dhacay ma dhihin waa la isla aqbalay bal ogoobay doorasho meesha macnaha ku leedahay quruxdeeda iyo foolxumadeeda waa waxa soo baxa sidii loo aqbalo haddii waxa soo baxa la isku qabsado waxa Ciraaq ka taagan ee Afghanistan ka taagan ee Liibiya ka taagan weligeed taagnaana waxaan rabaa inaan markaa horta ay dhaqanka jiro waa sidaas aad iyo aad ayaan u amaanayaa waa bogaadinayaa Somaliland hoggaankeeda iyo shacabkeedaba waxa ay suubiyeen waa dhaqanka Soomaaliga oo saxda ah waa midka aan rabno inta inuu ka dhaco hadda waad aragteen tira badnaan iyo anaa reer hebelay anaa laandheera iyo la isuguma faanin dad badan oo laandheernimo sheeganayna kursiga waa soo waayeen kuwa waa laangaab la lahaana si sharaf loo karaamo loo laandheera kasta ka sarreysa ayay ku soo baxeen waa maxay fikirka waaye qofka fikirka uu ku hadlay badeecada suuqa siyaasadeed oo geystay waaye badeeco fiican ayuu suuqa siyaasadeed geystay qofkaasi iyo dadka guulaysto dhanba dhalinyaro iyo siyaasiyiinta dhammaan ahaan kuwa maanta jooga kuwa mustaqbalka soo socdo suuqii siyaasadeedna aan abuurno oo badeecada siyaasadeed la keensan lahay badeecada siyaasadeed waa maxay fikir Bile Mire Maxamed Hoon Cable TV